waxaa maanta magaalada Nairobi lagu qabtay shir looga hadlayay bulshada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaamada Jubbooyinka sida ula jaan qaadi lahaayeen siyaasadda Soomaaliya iyo waliba sida ay dawladda Sheekh Shariif ay isaga kaashan lahaayeen nabadda deegaamada Jubbooyinka. Shirkani ayaa waxa soo qaban qaabiyay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ah. ugu horeyna shirkaasi waxa ka hadlay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee Jubbooyinka Cabdirasaaq Khaliif Ashkar isagoona ka warbixiyay muhiimadda shirkani oo ugu baaqay dawladda Soomaaliya inay kala tashato qabiyo qoraalka dastuurka isla markaasina dawladda Soomaaliya ay kala shaqeeyaan nabadeynta gobolada Jubbooyinka. magaca ururada bulshada gobolada Gedo iyo Jubbooyinka maanta nuxurka aan u qabanay shirkan anagoo xogaa faahfaahin ka bixinayna waa in la midoobo oo dadka wax wada qabsadaan dawladda kumeel gaarkana aan indheeda u soo jeedino inay goboladan wada shaqeyn fiican la sameeyso qodobadii aan xogaa aan dib wax yar u dib raaco qodobada aan tixraacina waxay ahayd tala bixinta qabiyo qoraalka dastuurka oo aan doonayno inaan kala shaqeyno dawladda kumeel gaarka ah ayadana ay gacan nagu siiso sidii aan u xiriirin lahayn ururada bulshada gobolada Gedo iyo Jubbooyinka iyo dawladda kumeel gaarka ah dib u heshiisiinta beelaha guud iyo midda deegaanka u gaarka ah waxa ugu muhiimsan maanta odayaasha suldaanada siyaasiyiinta ururada haweenka waxa ugu badan ay maanta halkan ka jeedinayaan waxay ahayd qodobka ugu muhiimsan inuu yahay dib u heshiisiinta waxaan ka codsanaynaa gaar ahaan wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta in aan wada yeelano xiriir joogto ah si aan u xiriirino goboladan Jubbooyinka iyo Gedo si ay dawladda wada shaqeeyaan. sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay Injineer Cabdulqaadir oo ku eedeeyay dawladda in ay ka gaabisay waajibaadkii ka saarnaa deegaamada Jubbooyinka. waxaad moodaa dawladda federaalka in ay ilaawday xibinteedii ku saabsaneed goboladan ay u soo jeesatay meelo kale marka waxaan u baahanahay dawladda federaalka qaas ahaan sharciga dastuurka qabiyo qoraalka in ay kaga hadasho si bayaan ah gobolada meesha ka taagan yihiin taa waa codsi aan ka codsanayno dawladda federaalka. gabagabadii halkaasi waxa ka hadashay Marwa Amina oo kamid ah dadka ka soo jeeda deegaamada Jubbooyinka. Jubbooyinka waa gobolada ugu maxay ilaa hadda aan waxba loo qabanin inteenan maanta iskugu timid meeshan waxaan u baahanahay inaan wax qabano sababtoo ah waxaan ugu wada jiro qof kasto siyaasi aan leenahay aqoon-yahan aan leenahay wax kasta aan leenahay dhaqaatiir aan leenahay laakiin wadankii waa laga maqan yahay. Amran Xasan Cabdillaahi Hon Cable TV magaalada Nairobi.